السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الشرف له ميلو بعد نقدر سنسان أما نقدر دعوانا يسهل halkan waa tii podcast aan doonayno inaan maanta qayb ka noqdo kelmadda taxanaha ah ee la magac baxday oraahda Ramadaanta. oraahda Ramadaanta ayaan maanta waxaan doonayaa inaan ku soo qaato sifooyin kooban oo uu leeyahay hogaamiyaha wanaagsan. sababtaan usoo qaadanayna mawduuca hogaamiyaha wanaagsan ayaa waxa ay tahay inaan shakhsiyadeena iyo bisha Ramadaan isku xirno inagoo dooranayna hogaamiye ka mid ah jirkeena. haddaba inta aanan u guda gelin barnaamijka qaybtiisa dambe ayaan ku faahfaahin doonaa hogaamiyaha jirkeena, laakiin waxaan rabaa intaan mawduuca u guda gelin aan isla ogaano ama isla qeexno waxa loo yaqaano hogaamintu waxa ay tahay iyo sifooyinka la xiriira hogaaminta wanaagsan. marka laga hadlayo ereyga hogaamin, way fududahay qeexideedu sida ay u culus tahay shaqada hogaamintu. tusaale ahaan, hogaaminta waxaa lagu qeexaa samaynta jiho ay dadku raaci karaan. hogaamiye waxaa la yidhahdaa waa qofka sameeya jiho ay dadku raaci karaan, laakiin qeexitaanku aad ayuu u fudud yahay marka loo eego culayska ay leedahay baaxadda hogaamintu. sidoo kale ogsoonataa inay kala duwan tahay wax loo yaqaano hogaaminta, qaybo kala duwanna ay leedahay. tusaale ahaan, hogaaminta ganacsiga, hogaaminta dowladnimada iyo hogaaminta dhaqanka. farqiyada kala dhaxaysa ee kala duwan ayaa waxa ay sababaysaa in qeexiddu ay adkaato marka laga hadlayo hogaamin. laakiin si guud waxaa loo yiraahdaa hogaamintu waa samaynta jiho bulshadu ay mari karto, ama jiho bulshadu ay raaci karto ama ay aadi karto ayaa waxa la yiraahdaa hogaamin. okay, waa maxay farqiga u dhaxeeya haddii aan isweydiino hogaamiye iyo hogaamin? farqi ayaa u dhaxeeya. waxaa laga yaabaa inaad ku jahawareerto ama suuragal kugu noqoto inay jahawareer kugu abuurto farqiga labada u dhaxeeya. laakiin si fudud waxaan oranaynaa hogaamintu waa shaqada uu qabanayo qofka hogaamiyaha ah. hogaamiye waa maxay? hogaamiye waa shakhsiga. hogaamiye haddaad maqashid waa shakhsi ama waa qof ayaa noqon kara hogaamiye. hogaamintuna waa shaqada uu qabanayo qofka hogaamiyaha. si fudud ayaan ku qeexnay hogaamiye iyo hogaamin waxa u dhaxeeya. sidoo kale waxaa la yiraahdaa waxyaabo suuragal ah ayaa jira oo isku soo dhow isla markaasna abuuri kara jahawareer, sida hogaamiye iyo maamule. hogaamiyaha waxaa loo yaqaanaa dunidana isku raacday inuu yahay qof leh hal abuur isla markaasna samayn kara isbedel. laakiin maamulaha waxaa la yiraahdaa waa qof awood iyo kakanaan u leh inuu socodsiin karo shaqada ama inuu shaqada socodsiin karo. tusaale ahaan, shaqo ayaa waxay ka dhex jirta xafiis hebel oo noocaasi noocaasa. tusaale ahaan, wasaaradda maaliyadda oo kale waxaa ka dhex jirta shaqadaasi waxaa suuragal ah ama u baahan tahay qof systemka socodsiiya, laakiin waxaa la rabaa istiraatiijiyad guud ee wasaaraddaasi ay ku socoto, waxaana samayn kara qofka hogaamiyaha. sidoo kale waxaa jira tilmaamo loogu talagalay inuu yeesho qofka hogaamiyaha wanaagsan ah. hogaamiyaha wanaagsani waxa uu yeelan karaa sifooyin tiro badan oo aan soo koobi karin, laakiin mawduucana waxaan rabnaa inaan ku soo qaadano dhowr sifo oo kala duwan. waxa kow ka ah hogaamiyuhu inuu yeesho han sare, inuu yahay shakhsiyaad ay gubayso himilo marka laga hadlayo hanka iyo inuu qofku isbedel samayn karo. waxaan ku soo qaadanay hogaamiyuhu inuu yahay nin isbedel doon ah ama hal abuur ah. taasi waxay sababaysaa qofka inuu yeesho hankaas oo suuragal ka dhigaya qofka inuu mar walba wax tabo. tabidaasi waxa ay ka mid tahay sifooyinka hogaamiyaha wanaagsan oo ah inuu qofku yeelan karo han sare. sidoo kale waxaa ka mid ah inuu qofku yeelan karo energy, inuu firfircoon yahay uusan marnaba ka daalayn inuu qofku gaaro hadafka uu leeyahay. tusaale, haddii aan idhaahno maanta waxaan seexanayaa 3 saac oo ka mid ah iyo maanta waxaan seexanayaa nolosheeda 8 saac oo ka mid ah, labada qof waxa ku kala cadaanaysa inuu qofna sabab uusan u seexan karin ay jirto oo wax gubaya ay jirto, qofna aysan dhibaynin waxyaabaha ku xeeran isla markaasna uu haysto waqti badan oo uu ku qaato hurdo. taas macnaheedu maaha in labada qofi ay siman yihiin. oraah kale oo jirta ayaa waxa ay tiraahdaa ninkii han yar baa hurdada ka bogtee allah maxay himiladu qalbiga holcisaa. macnaheedu waxa weeye qofka haddii han iyo himilo uu leeyahay waxaa suuragal ah qofkaas inuusan seexan. ma jiraan dad duhurkii aan seexan ama markaas wax qoritaan iyo wax un ku foogan.
waxaa laga yaabaa waxyaabo u diidaya hurdada inay jiraan. Sidoo kale waxaa jira qofkii inuu leeyahay rabitaan hogaamineed. Qodobka saddexaad waa inuu qofku leeyahay rabitaan hogaamineed, inuu qofku doonayo inuu wax hogaamiyo, qofku la oranayn hebelow waxaas qabo ama qofka aan la tilmaamayn. Sifooyinka hogaamiyaha ayaa ka mid tahay. Sidoo kale waxaa ka mid ah qofka inuu yeesho khibrad hogaamin, inuu wax u boogsado. Khibradda waxaa lagu qaadan karaa kow inaad taariikhda iyo sooyaalka taariikheed ee bini'aadamka aad dib u raacdo, waxyaabo badan aad ka soo qorto ama aad ka soo akhriso. Sidoo kale waxaa lagu qaadan karaa ama ay suuragal tahay in la helo qofka hogaamiyaha noqonaya ama qofka hogaamiyaha doonaya inuu noqdo inuu la shaqeeyo cid hogaamiye ah ama waqti badan uu la qaato. Sidoo kale waxaa jirta wax loo yaqaano isku kalsoonaanta nafta oo ay sababto daacadnimada. Hogaamiye walba oo daacad ah waxa uu dareemaa isku kalsoonaan. Ereyada ugu waaweyn ee lagu sifeeyo hogaamiyaasha wanaagsan waxaa ka mid ah daacadnimada. Daacadnimadu waxay sababtaa in hogaamiyuhu noqdo hogaamiye isku kalsoon. Tanna waa qodobka laf-dhabarta u ah qofka hogaamiyaha noqonaya. Haddaba mawduuceena maanta waxaan usoo qaadanay oo ujeedkiisu u daaranaa in aan hogaaminta iyo hogaamiyaha aan wax ka kala barano. waxaan u malaynayaa xog kugu filan oo hogaamiyaha inaad heshay. Haddaba bisha Ramadaan waxaan doonaynaa in jirkeena qayb ka mid ah aan u doorano inay noqoto hogaamiye oo hogaaminaysa jirka in qaybteena kale. Qaybta aan maanta u dooranayno in jirkeena hogaamiso waxaan ka soo qaadanaa inay noqoto qalbiga. sidaan la socno waxa lagu gudub jiraa bil tababar oo ah dhammaan dadka muslimiinta oo dhan ama shakhsiyaadka bini'aadamka ee ku foogan falka soonka. Sida awadeed waxaa muhiim ah in jirka uu yeesho qayb uu ka dambeeyo. qaybtaas waxa ay hagaysaa ama suuragal u noqon kartaa in jirka iyo nolosha bini'aadamkuba ay isbedesho ama shakhsiyaadkeena isbedelo. Tusaale, haddaan qalbigayga u doorto inuu noqdo hogaamiyaha jirka qaybtiisa intiisa kale oo dhan, waxaa suuragal ah in qalbigayga uu noqdo qalbi han leh, qalbi daacad ah, qalbi khibrad leh ama qalbi wax dheegta inta badan. taas oo sababaysa in jirka qaybahayga kala duwan oo dhan ay noqdaan qaybo urursan oo isla markaasina maraya jihada uu noo jeexay hogaamiyaha jirkeena. qalbigeena aan ilaalino inta lagu guda jiro bisha Ramadaan, aan ku ilaalino daacadda Ilaahay iyo Qur'aan akhriska. sida awadeed oraahda maantay waxay oranaysaa jirkeenu waa inuu yeeshaa hal qalbi, isla markaasina waa inuu noqdaa mid ku foogan daacadnimada iyo falidda faradka Eebbe subxaanahu wa tacaala oo nagu amray bishan ee ah inaan xalaasha quudanno, afkeenana xirano maalinta oo dhan si aan Ilaahay u adeecno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kaasina waa barnaamijkii Tip Podcast. magacaygu waa Cabdullaahi Muuse.